نادر بلد كي قالوا برورا بريغان وصبحنا بوستامي كابوب تاي يومالي توستو habeenkii xalay ayaa magaalada London ee waddankan Ingiriiska waxaa lagu qabtay xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaasina lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdulqaadir Abukar. xafladan oo ay markaasi soo agaasimeen Somali Banaadir Association bahda baraarujinta banaadiriga ee magaalada London ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee reer banaadiriga ee ku nool magaalada London. dadkii ka soo qayb galay ayaa waxaad mooday in ay si wanaagsan ay ugu faraxsanaayeen oo magacaabitaanka uu duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamuud Xuseen Mugaabo u magacaabay Maxamed Cabdulqaadir Maxamed gudoomiyaha degmada Xamarweyne. isbedelada waaweyn ee ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina uu sameeyay duqa cusub ee magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Mugaabo ayaa waxaad moodaa in dhalinyarada caalamka meel walba ay Soomaalidu ay ku nool yihiin ay aad ugu farxeen kadib markii uu dhalinyaro u magacaabay degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. taasina waxaad ka dareemi kartaa in mustaqbalka waddanka Soomaaliya uu aad u wanaagsan yahay isla markaasina dhalinyarada banaadiriga ay habeenkii xalay waxay aad ugu qanacsanaayeen magacaabitaankiisa. xafladaas oo ay markaasi si wanaagsan ay kaga dhex muuqdeen odayaasha dhalinyarada ayaa waxa khudbado kala duwan ka soo jeediyay dadweynihii ka soo qayb galay iyagoo mar waliba taabanayay in isbedelkani loo baahnaa. khudbadihii ayaa waxay u bilowdeen sida tan. waxaan jecelnahay maanta inaan soo dhaweyno gudoomiyaha cusub oo degmada Xamarweyne loo doortay iyo sawoontinta gudoomiyihii hore. hadda waxaan jecelnahay insha Allah inaan soo dhaweyntii aanu bilaabato. hadda waxaan noo hadlaa gudoomiyaha baraarujinta gudoomiyaha bahweynta baraarujinta banaadir kusoo dhawaaw Mr. Xasan Muriidi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آذان مانتا وفرحسنا هاي إن آن مانتا خطبت آن كسو جيديو oo dhammaan dhalinyarada reer banaadir halkan wada fadhiya iyagoo shucuurtooda aan la soo koobi karin. aniga marka hore haddaan iska sheego iskay baro magacayga waa Xasan Muriidi Abukar la yiraahdaa. waa gudoomiyihii dhalinyarada BB Banaadir. afka Ingiriisiga waxa lagu yaqaanaa Somali Banaadir Association UK. afka Soomaaliya caadina waxaan la baxnay baraarujinta bahweynta Banaadir. waxaana aad ugu faraxsanahay maanta oo aan shucuurteeda la soo koobi karin inaan maanta aan ku faraxno farxad weyn ay noo tahay in walaalkayna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir uu maanta xilka gudoomiyenimada degmada Xamarweyne uu maanta loo doortay uu si wanaagsanna jawan wanaagsanna uu kala wareegay Abdullaahi Sahal Gardhoob sida wacan walaaltinimada iyo qalbi furnaanta iyo farxadda uu xilka u wareejiyay aad iyo aad aan ugu faraxnay. annaga maanta ma malayn karta shucuurteena sida wacan oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaana ilaahay ka baryaynaa xilka culus ee Cabdulqaadir uu saaran yahay inuu si xaq ah ugu soo baxo ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo dhanna asay sugayaan in uu wadankiina u la shaqeeyo mudane Mungaab. ilaahay waxaan ka baryayaa in ay wadankii ay ku soo celiyaan ku soo dabaalaan sidii hore nabad iyo rayn oo annagoo faraxsanna aan tagi karno oo wadankii sidii hore uu ahaan jiray nidaamkii kala dambeyntii iyo nadaafadii. waana rajaynaa insha Allah waxaana ku rajaynaa guul insha Allah. waxaana ka filaynaa inaad ka soo bixi doontid mudnaantii iyo amaanadii lagu dhiibtay ummadda Soomaaliyeed ummadda gobolka Banaadir ay mas'uul kaaga dhigteen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول وإذن سلامي تيفيغا
royal t v waa idin salaamay adinkana aad baa umahadsantihiin kasoo qaybgalka aad noogu soo qayb gasheen aadna noogu soo jawaabteen tan xigta marka ugu horeyso waxaan salaan u diraynaa ummadda Soomaaliyeed marka xigtana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka marka xigtana waxaan salaan qaas ah u diraynaa gudoomiyaha ama gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho mudane Mungab baryahan wuxuu sameeyay gobolka Banaadir wuxuu dhiibay dhalinyar mutacalimiin ah oo wada jaamiciyiin ah marka taasna waxay ku tusaysaa inuu rabo in ay gobolka Banaadir ay horumar gaarto maadaama ay dad wax garad ah loo dhiibay marka anaga haddaan nahay Banaadiri marka waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarweyne loo dhiibay mudane Cabdulqaadir Maxamed Sadiiq waxaan aad iyo aad hambalyo ugu direynaa asagana sidii uu wacneyd ay ugu baxay xilkii loo dhiibay oo uu ka soo baxay mudane Cabdullaahi Sahal Gardhuub oo xilka uu ku wareejiyey si lama filaan uu xilka ugu wareejiyey mudane Cabdulqaadir marka aad buu ugu mahadsan asagana hadda insha Allah waxaan ku soo dhaweey doonaa gudoomiyaha jaaliyadda ee UK Dr. Sharif Abbas falyatafadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلين وسلامتين مقع بقولتهم أفرت إذا سلامة سلامة كدب waxaan rabaa inaan halqabsi ka dhigto waxyaabihii hadda la soo jeediyey walaalahayga saaxiibadeedii baaweynta banaadiriga xubnahooda ka soo jeediyeen ay ka hadlayeen isbedelka ka socda wadanka waay cusub ayaa wadanka u dhashay siiba gobolka Banaadir waana mudan yahay in loo sacabtumo lagu farxo waa halgan muddo socotay alxamdulillaah ilaahan ku mahadinaynaa maanta inuu suurageliyey in isbedelkaas yimaado waxaa farxad kale leh in maanta dhalinyartii waay u soo baxay waay u furmay dhalinyartii wax baratay taasoo loo baahnay in ku dayasho timaado waxaan u jeedinaa dhalinyarta ku sugan wadankan Ingiriiska in fursadan fiican ilaahay ku manaystay in ayaga iyo caruurtooda ka faa'iideystaan waxa hadda wadanka ku soo socda waxa waaye tartankaas kii ku guuleysta ayaa xushmad iyo sharaf iyo qiimo ku yeelanaya wadanka markii loo noqdo marka fursadaas waxaan ku bogaadinayaa dadkeena dhalinyarteena inay si fiican ugu faa'iideystaan midda kale waa ididiila fiican arrinta ka socota Soomaaliya siiba gobolka Banaadir oo maanta aan u fadhino inaan arrimaheeda ka hadalno gobolka Banaadir waa gobol dadka inta wada fadhiya aan dareemayo inay xundurtooda ku dugan yihiin aabayaashoodii iyo odayaashii wadankaas wax ka dhisay ay ka dambeeyaan kasoo unkadeen waxayna u baahan tahay in awoyaashii la xuso markii la duceysanayo haddaysan ayaga ahayn maanta annaga ma ku faaneen xamar wax ka dhacayo marka ididiila fiican leedahay in la xusuusto waayii hore hadda waxa dhacay in la xusuusto anoo Cali Cusmaan Nuur khawaayaasha Banaadir waxaad farxad in gudoomiyaha cusub la doortay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxaan ka faraxnay waan xilkan ilaahay ka rajayna xilkan culus in ilaahay u fududeeyo wabillahi tawfiiq madaxweynaha Banaadir State abaawo oo nasiib u yeelan oo cawada noo yimid muddo intaan ka badan waan laakiin alxamdulillah caawa nasiib aan ku yeelanay abaawo
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. maanta waxaa sharafi ah anigoo aan ka soo qayb galay xafladda sii sagootinta iyo soo dhaweynta labada gudoomiye ee degmada anagu aan ku abtirsano ee Xamarweyne jad wajad Xamarweyne. waxaa kaloo sharafi ah in aan ka soo jeediyo maanta iyadoo ay fadhiyaan macallimiintii waxna soo bareen ahlul beedkii caruurtii annaga aan dhalnay macallimiintii waxna soo bartay inaan hortooda aan ka soo jeediyo maanta khudbad laftirkeeda waa farxad kale. haddaan u soo noqdo barnaamijka caawa iskugu imaanay waa sugaynay kasii badan waa sugi doonaa insha allah. haddii la sabro wax walba waa la gaaraa, lama quursado adduunyada bilaadan. xataa cunugaada yar maanta hadday aad dhashid cudur macnaa uu ku dhasho dhakhtaraa geene dhakhtar kala geene dhakhtar kala ilaa tiiraba ku imaado ama ilaa ka weynaada xataa ilan disability ama dadka la leeyahay handicap la leeyahay ma laga quursadaa? waa maya, amar ilaahay ku dhacay lama quursanayo. haddaan usoo noqdo gudoomiyii hore cabdulaahi sahal gardhoob muddaan isla soo shaqaynay, fikrado badan ayaan isgudubsanay, fikradeedana uu qaadan jiray runtii. taasna kulley taariikhda ayaa sheegaysa wuxuu uu soo qabtay runtii, ama ixtiraamku u hayay reer banaadirka, ama markaan u tagno anigoo ka ah meesha madaxweyne ahaan ama oday beeleedyadeena. xataa hadda Cabdulqaadir asagoo la keenay oo annaga isku isri aan nahay ayaa odayaashii waxay yidhahdeen war Gardhoob ayaa noo joogay. annaga waa garan karnaa haddaan nahay qowmiyadda banaadir ninka axsaan sameeyey axsaan in lagu gudo waay. saxan ku gud saan ku gud axsaan ku gud waay. marka haddaan markaan u soo noqdo taariikh nololeedka ama taariikhduu sameeyey Gardhoob waxay ahayd oo aniga aan joogay. haddii ay meel wax ay ka yeeraan raadiyihiisa ku soo xiran jiray baabuurkiisa, isaga ayaa dibadda u soo bixi jiray ama dhibaatada markaas degmada gudaheed ay ka jirto isaga laftigiisa u dhigan jiray kolley xabadkiisa. waxaan halkan bogaadin ugu soo jeedinaa gudoomiyaha ahna duqa magaalada Muqdisho sida geesinimada leh uu ugu magacaabay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir duqa magaalada Mongab General Mongab. taan laftirkeeda taariikhda ayay gashay maanta waan garan kartaan waxyaalaha hadda xamar ka dhacaya in awood loo isticmaalayo ciddii diida in ay wareejiso macnaa xilka awood ayaa loo isticmaalaya. awooddaasna halkee ka timid fikir badanaa la isku darsaday, waxyaalo badanaa la istusay. marka taa laftirkeeda micnaheed waxa waaye wax shaqaynaysa nala tahay annaga laftirkeena, laakiin I don't know tomorrow waxay noqon doonto. laakiin hadda aragtideena markaan annaga aan focuska aan saarnay waxaan u jeednaa ra'yigan inuu fiican yahay. hadalkay ku bilaabayaa salaanta midda ugu khiira fiican ugu wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka xigase waxaan aad iyo aad ugu farxay maanta tani sida wacan oo wanaagsan oo halkan nagala soo qayb gasheen xafladda tani oo aan ku soo dhaweynayno walaalkeeni Mudane Cabdulqaadir. marka annagana waxaan ka mid nahay ururkii dhalinyaradii oo u soo istaagtay in mar walba hiil iyo hoo inaan garab siino qof alla qofkii walaal ah oo u soo istaago inuu wax macnaa caawinaad ama oo gargaar iyo oo mar walba hiil iyo hoo u haynaa wanaagga uu soo istaagayo qowmiyadda banaadiriga. annagana waxaan ka mid nahay baraarujinta bahweynta banaadir. magacaana wuxuu ku soo baxay oo u jeedaan haddana kor waa kaga daawan doontaan oo malaynaa korkay ku qoran yihiin. marka arrintaana waxa waaye macnaheedu waxa waaye qof alla qofkii reer banaadir ah inaan anaga aan garab siinayno aan hiili hoola garab taagannahay. marka asagana waxaan leeyahay mudane xilka lagu saaray ma aha xil fudud, waa xil aad iyo aad culus. marka waxaan ku rajaynaynaa inuu ilaahay ku fududeeyo wixii reer banaadir ah oo mar walba damacsan inay u soo istaagaan waxa qabadka reer banaadiriga iyo wadankooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la garab taagannahay. banaadir
baladkayga loo bururaa barigaan u soo baxnaye bustamee ka buubtaaye maaliyey toosto isu fiirsadaye xabadiina taagdarane taageera. gabagabadii xafladan ayaad waxaad mooday in shucuur aad u wanaagsan ay ka muuqatay bahda banaadiriga ee ku nool waddankan ingiriiska isla markaasina ay rajeynayaan in mudane maxamed cabdulqaadir abuukar uu shaqadiisa u gudan doono. wasaalim salaad dhowre magaalada london ee waddankan ingiriiska.